booliska dalka Kuwait ayaa waxay gacanta ku dhigeen laba dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Kuwait kuwaas oo lagu helay inay xoog ku kufsadeen laba haween oo Soomaali ah. wargeys maalinlaha oo ka soo baxa dalka Kuwait gaar ahaan caasimadda dalkaasi oo lagu magacaabo Al Riyadh ayaa laga soo xigtay in haweeneydan Soomaalida ah lagu faraxumeeyay beer ku taala degmada Wafra. ilo dhinaca amaanka ayaa sheegaya in mid kamid ah haweenka Soomaalida ay xiriir la lahayd mid kamid ah raggii kufsiga geystay oo ay hore ugu sheegtay isla markaasina uu ugu sheegay inuu guursan doono. eedeysanaha ayaa la sheegay in haweeneyda ka codsaday inay ku kulmaan xaafadda Qadisiya si ay halkaas ugu kulmaan. haweeneyda waxay hore u sii wehelisay gabadh kale oo ay saaxiibo yihiin si ay u soo aragto ninka ay ku balansan yihiin guurka. wargeyska Al Riyadh ayaa sii qoray in labada gabdhood raaceen gaari uu watay mid kamid ah ragga balansaday oo uu wehelinayo mid kamid ah saaxiibadiisa, waxayna ula jahaysteen beer ku taala deegaanka Wafra halkaas oo si khasab ah ay ugu kufsadeen gabdhaha Soomaaliyeed. dhinaca kalena mid kamid ah gabdhahaas ayaa wargelisay booliiska xadgudubka loo geystay iyada iyo saaxiibteed, waxayna booliisku ku guuleysteen inay soo qabtaan raggii xadgudubkaas ka dambeeyay. eedeysanayaashani waxaa loo gudbiyay xeer ilaalinta dalkaas waxaana ku socda baaritaan. sidoo kalena haweenka dhibanayaasha ayaa iyagana loo diray isbitaal si loo soo xaqiijiyo in kufsigani loo geystay.